sheekada haweeneyda habka siisa geedaha magaalada si ay uga bogsato walbahaarka nolosha. intaana muuqaalka guda galan haddii ay tahay markii kugu horeysa aad na soo booqato fadlan muuqaalka like saar oo page-ka follow garay maasanid. haweeney u dhalatay dalka Jeenaha ayaa qabsatay hadal haynta warbaahinteeda Jeenaha kadib markii la arkay iyada oo ku dhagan ama hab siinaysa geedaha magaalada. waana talaab ay sheegtay in ay u sameynayso si ay u hesho farxad, naxariis iyo xasilooni dabeecadda habsiinta geedaha. gabadhan ayaa sheegtay in habsiinta geedaha ay soo bilowday bishii Abriil ee sanadkan iyada oo saygeeda la joogta bartamaha magaalada. waxa ay sheegtay in iyada oo dareemaysa waxoogaa cariiri ah ay doontay bal in ay habsiiso geedaha magaalada. waxa ayna sheegtay in habsiinta geedaha ay ka heshay dareen togan oo nashaad leh. buuqa iyo walwal badan oo ka haystay dhanka shaqada ayay sheegtay in ay kaga bogsatay habsiinta geedaha. tan iyo markaasna waxa ay door biday in ay la ogaadaan arrintan dadka kale si muhiimadda ku jirta arrintan ay uga faa'iideystaan. gabadhan intaasi kuma sii ekaane waxay u baxday duurka ama kaymaha si ay hab u siiso kumanaan geeda ah. waxa ay hoosta ka xariiqday in mararka qaar ay dareento in geeduhu ay iyadu hab siinayaan oo ay ku dhagan yihiin. waxa ay tiri kama helin dadka habsiintooda dareen togan, laakiin geedaha waxay ii yihiin dhageystayaal fiican oo marnaba aan hadal isiinay. cilmi baare aad ugu takhasusay cilmiga psychology-ga ayaa sheegay in habsiinta qofka insaanka ah muddo 21 ilbiriqsi ah laga heli karo xasilooni iyo deganaan, balse weli si faahfaahsan loogama hadlin faa'iidada laga heli karo habsiinta geedaha.